shirkani maanta ka furmay Istanbul waxa uu ahaa mid dhaxalgal u ah ganacsatada Soomaaliyeed waana wajigii labaad ee shir noocan oo kala ah lagu qabanayo sanadkan gudihiisa gudaha wadankani Turkiga waxa saakay madashii shirkani ka dhacay goobjoog ka ah ganacsato Soomaaliyeed oo gaarayay 74 ruuxa oo ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya Masar Gabeere waa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxa uu TV-ga Universal uga warbixiyay faa'iidada shirkani uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed ka dhacay kulan aad u weyn oo isugu yimaadeen ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Turkishka kulankaas oo ahaa kulan ay hore u qaban qaabinayeen labada dawladood heshiis ay hore u galeen oo guddiga wasiirada dhaqaalaha iyo wasiirada dhaqaalaha ee Turkiga labada group oo hore u saxeen oo daba socda kulankani marka waxaan maanta ku guuleysanay inaan si weyn oo culus aan halkan isugu nimaano shirkan oo loo ilaaliyo maanta 3 iyo 4 inuu socon doono oo isugu yimaadeen ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan qaybaheeda kala duwan anagoo matalayna markaas gobolada oo dhan jambarada gobolada oo dhan ay nala qaybaheeda kala duwan anagoo matalayna markaas gobolada oo dhan jambarada gobolada oo dhan ay nala socdaan waxa halkan marka maanta oo ahaa qaybta koowaad inaan isku dhaafsano khudbooyin yar oo kooban oo loogu talagalay mustaqbalka qaybta labaad waxay noqon doontaa wax soo saarka dalka Soomaaliya oo aan wadno in badan oo kamid ah inaan soo bandhigno ganacsatada Turkiga ay imaan doonto waxaan wadnaa muus aan wadnaa cambaan wadnaa liin aan wadnaa liinta qalalan aan wadnaa tiibon beelmada aan wadnaa kalluun aan wadnaa business badan oo kala nooc ah iyo waliba dadkii ama tilla businessadaas sisinaan wadnaa oo loogu talagalay waliba in hab B2B ay isu hor fariistaan waxyaabaha Soomaaliya lagu amaanay waxa kamid ahaa qudaar macaan oo nooc walba leh waxayna indhahaygu ay qabanayeen ganacsatada oo goobta ku soo bandhigay qudaar kala gedisan Qadra Cabdulaahi waxa ay muddo ay ku nooleed dalka Britain balse waxa ay dib ay ugu laabatay dalkeeda waxayna caasimada Muqdisho ay ka hirgelisay shirkad ganacsi oo qumbaha dalkeena ka sameynaysa kreemka jirka la marsado Qadra waxa aad u booqanayay goobtii ay ku soo bandhigtay agabkeeda ganacsato badan oo Turki ah oo barnaamijkani maanta ka soo qayb galay iyaduna Qadra loo jeeday oo sharaxaad siinaysa ganacsatadii goobteeda booqanayay This is the right one is different and this one is made different because this is organic and pure. This is a better one. This is mostly for hands, right? I mean, no, for the face. Most of the people use it for the face. Yeah, and the body as well. I will just take a little bit. Yeah, you can take, and then all the wrinkles will go. You know, you will look very young. hooyo Xirsiyo Cabdulle Siyaada waxa ay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo sidoo kale maanta soo bandhigtay mooska liinta iyo waliba cambaha waxayna aad u soo dhaweysay barnaamijkani aniga kambanigayga waxaan keenay limontan liin dhanaan caadiga ah waa limon fresh way waxaan keenay moos waxaan keenay isbaandhayd kan wadankeena ka baxaa adduunka ma maleynaa wadamo 1 iyo 2 ah laga helaa lama yaqaano waxaan xoog saaraa inaan baro oo sida oo mooska loo dhoofinayo kala isbaandhaydka loo dhoofiyo cambaha marka faa'iido weyn aniga hadda aan ka helaa insha Allah dawladda Turkiga ayaa waxa ay doonaysaa in Soomaaliya ay suuq ganacsi ay ku yeelato gudaha dalkani Turkiga si Soomaaliya isku filnaansho ay u gaarto wasiir Maareye waa wasiirka ganacsiga ee dawladda Soomaaliya waxa uu hogaaminayay wafdigii ka qayb galayay barnaamijkani halkan waxa ka dhacay kulan ay la isugu keenay in ka badan 150 ganacsato Soomaaliyeed iyo Turki isugu jira oo loogu talagalay inay ka wada hadlaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Soomaaliya iyo Turki gaar ahaan Soomaaliya oo xilligan hadda u baahan maalgashi kulan aad iyo aad muhiim u ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyeed dhamaanteed ayaa kulankan soo qalqaaliyay oo ugu talagalay in maadaama Soomaaliya hadda ay ka gudubtay xilligii burburka iyo dagaalada sokeeye iyo amni darrada ay ka baxayso oo la doonayo in dhaqaalaha Soomaaliya la dhiso hadda waxaan ugu talagalnay inaan kulankan qabanno oo ganacsatada Soomaaliya ganacsatada Turkiga isbarno oo ay ka wada hadlaan fursadaha jira iyo sida ay u wada ganacsan karaan sida ay maalgashi u wada sameyn karaan gaar ahaan Soomaaliya sidii aan sheegay Salman